waxaan rabnaa inaan barnaamijkeena horey u galno dunida maanta aan joogno ragga Soomaaliyeed kuma badna in ay qabaan afar xaas boqolkiiba 99 ama 98 hadaan dhahno waxa laga yaabaa 10 kamid ah inay haystaan afar xaas inay qabaan Sufyaan ahaan maxaa kugu kalifay in aad afar xaas guursato adiga marka ugu horeysa mar kale waa mahadsan tahay runtii afar xaas inaan guursado waa nicmo Allah subhanahu wa ta'ala uu ii ogolaaday Allah subhanahu wa ta'ala aan uga mahad celinay ma aha waxaan awoodan uga leen ku keensaday waxa Allah subhanahu wa ta'ala igu aadiyay gabdho aad u wanaagsan runtii oo ah ehludiin oo sharaf leh maadaama ayna tahay sunnadii islaamka aniguna nahay qof siyaasiya oo runtii siyaasadda islaamka aaminsan una ololeeya kor u qaadida shacaa'irul islaam ama dhaqamada islaamka kana fakaraya bulshada Soomaaliyeed iyo dhibaatada waqtigan xaadirka haysata ayaan doonay in aan anigu noqdo tusaale u noqdo bulshada Soomaaliyeed Allahna wuu ku guuleeyay ma sha Allah Sufyaano markii la dhaho nin afar xaas qaba iyo nin qaba hal xaas ama laba xaas what's the difference how do you farqa runtii waxa u dhaxeeyahay waa farxad waa raaxo waa nicmo uu haysto ninka afarta xaas leh uu ka badan yahay ninka ama halka xaas leh ama labada leh ama saddexda leh difference-ga waa kaas difference-ga waa kaas waa tahay maxaa faa'iido u leeyahay guurka afarta xaas maxaa caqabad ah oo adiga Sufyaan ahaan kala kulantay adigoo one by one noogu sheegay gabdhaha soo guursatay iyo markii ugu horeysay oo go'aan ku gaartay in aad yaani guursatid horta afartooda ma hal mar baa wada guursatay mise waqtiga u dhaxeeyay afartooda waxa u kala dhaxeeyay time waqtiga u kala dhaxeeyay isku mar ma ahayn waxyaabihii waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago wixii igu kalifay markii hore inaan gabdhahayga saaxiibada ah inaan sawir shanteen aan ku jirno afartoodii anigu inaan soo dhigo social media wayna daawanaya daawadayaasha waa tusayna muuqaalkana ku dhaxarkaysa absolutely waxa keenay arintaas markii la keenay sharciga jinsiyadda la rabay in lagu dhalan rogo diinta islaamka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaan aniga iyo gabdhahaygu go'aansanay inaan sawirkan galno bulshada Soomaaliyeedna aan ku faafino si aan uga hortagno arinta iyada intii karaankeena ama awoodeena isla markaasna aan ku xoojino kuna horumarino sunnada islaamka iyo caa'ilada islaamka ee dalka Soomaaliyeed ama dadka islaamka ay leeyihiin faa'iidooyinka ku jirta marka ayaad weydiisay faa'iidada ku jirta in afar xaas ama saddex xaas la guursado ama xaasba la guursado khaasatan afar xaas in la guursado faa'iidada ku jirta aad u farbadan tahay waxa kamid ah in laga hortago ama la waayo wax la yiraahdo garoob saad ogtahay wadankeena maantay ragga iyo dumarku waa kala badan yihiin dadka ka shaqeeya dawladda u shaqeeya oo khaasatan immigrationka u shaqeeya waqtigan hadda maanta Soomaaliya iyo dadka wax qiyaasaba waxay ku qiyaaseen inay tahay ratio-ga dumarka iyo raggu 7 halkii nin inay ku soo aadayso 7 gabdhood haddii marka ay sidaas tahay waxa afar xaas ninku markuu guursado waxa yaraanaya garoobkii waxa yaraanaya ama la weynaya zinadii waxa la weynayaa in laga ganacsado ama yaraanaya jirka dumarka waxa la weynayaa oo meeshii ka baxaya nin damca oo raba inuu damco sidii nal rabay in loo keeno ama naag damcada waxa meesha ka baxaya in ay balaarato waxa la yiraahdo ma ay faafaan waxa la yiraahdo furiinka oo iska yaraado waxa meesha ka baxaya in ay qofkii faqrigu uu faqri badan u jiro waayo afarta xaas ama qofku markuu guursado risiqa ayaa ku kordha waa sida sunnada islaamku waa sida diintu ay tahay waa anigana waa mid aan tijaabiyo arkay inay xaqiiq tahay marka waxa kale oo runtii siyaasadda islaamku ay ku salaysan tahay in aan isguursano kana badano dadka kaleeto si rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu inoogu faano isagana ayaa noo sheegay rasuulka noo sheegay sallallahu alayhi wasallam marka faa'iidooyinkaas iyo kuwa badan oo aan hadda meeshan macnaha aan waqtigiisa noo saabaxayn ay leedahay ninku afar xaas inuu guursado waxay taageeraysaa bulshada waa siyaasadda islaamka qofkuna markuu islaam yahay
runtii waxaa muhiim ah in uu siyaasadda islaamka uu ka fakaro inuusan noqonin qof hawaraaca in uu fahmo siyaasaddiisa iyo dastuurkiisa oo ah diinta islaamka. adoo usoo noqonaya jawaabtii hore caqabad adiga ma kala kulantay maxaa kala kulantay yani maxaa dareentay markii gabadhaadii ugu horreysay guurstay labaad saddexaad afraad yani sidee adiga maxaa dareemaysay? waxaan rabaa inaan ragga Soomaaliyeed aan la wadaago qodob aad muhiim u ah oo runtii guurka ama hal qab ama laba qab ama saddex qab ama afar qab guurka muhiim u ah markaad qof dumara markaad gabar islaam ama reer islaam aad rabto inaad dhistay kuna saamixi kara inaad guursato afar xaas iyo saddex xaas iyo wixii la mid ah waa runta inaad sheegtid gabadha aad qabto waxaa laga rabaa inaad runta u sheegto. aniga waxyaabaha runtii aan Allah subhanahu wa ta'ala uu iwaafajiyay oo ii saamaxay in biidni Ilaahi inaan arintan ku guuleysto ama afar xaas aan yeesho waxay ahayd inaan runta sheego. markaan runta u sheegana waxaa bilaabatay in la aamino waxaa bilaabatay in lagu kalsoonaado anigana sidaas kale aan kalsoonaado. way jiraan caqabado oo de caqabad waa gabar kale iyo cabsi iyo reer iyo waa jiraan oo ninku markuu hal xaas qabo iyo markuu afar qabo intaba waa jirtaa waxa la yiraahdaa caqabado waa jiraan guurku caqabadu leeyahay sidiisaba waxyaabo yar yar oo jira laakiin haddii aad isticmaashid qaacidadii islaamka ee ahayd inaad run sheegto ee ahayd inaad cadaalad samayso ee ahayd inaadan qodbasiro aadan aadin iyo wax la mida waxaa ku suurtagelaya ama qof islaamka u suurtagelaya inuu ku noolaado nolol macaan inta xaas uu rabana uu guursado. waatan aayadaha quraanka ah waxa ay noo sheegeen nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu aayado quraan ayaa ku soo degay marka guurka iyo waliba xaasaska in afar xaas lagu guursado shuruudaha jira oo diinta lagu sheegaa jira oo ah yaani qofka in uu u xaq sameyn karin afar xaas markuu guursanayo sidoo kale tana uuna xaq soor noqon karo ama awoodi karin in uu ka soo baxo cadaalad ahaan marka adiga qaabkee u xalisa arintan? waa run aayadda quraanka ku soo dhamaanaysa walaa tadaruha kal mu'allaqa sax weeye Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay. horta waxaa jirto ninku markuu afar xaas leeyahay ama markuu laba leeyahay ama markuu saddex leeyahay waxaa qasab ah oo Allah subhanahu wa ta'ala uu waajib nooga dhigay inaan cadaalad aan sameeyno cadaaladda gacanta inaan ka sameeyno iyo aqliga laakiin wadnaha cadaalad lagama sameyn karo. wadnaha waxa weeyaan xataa hadaad qarsato ama aadan ay u bandhiginin waxa weeyaan wadnuhu markasta qof ayuu raacsan yahay waa taas waa xaqiiq la isku hayo laakiin ninka islaamka waxa laga rabaa xitaa hadii wadnahaagu uu mid raacsan yahay inaysan banaanka ka imaan ee aad qariso oo aadan tusin. waxyaabaha muhiimka ah oo Allah subhanahu wa ta'ala uu igu nicmeeyay waafajiyan waxa kamid ah inaan isku dayo in aan tilaabo kasta oo qaadayo gabdhayga mid kamid ah mesela haday wax i weydiisato in aanan kaligeed siinay saddexda kalena aan siiyo oo mesela waxbay i weydiisatay baahi ayada gooni u ah ayay i weydiistay waxaas waxa qasab ah in aan markaas baahideeda aan siiyo ayada xaliyo laakiin isla markaasna in aan kuwii kaleeto ama saddexdoodii kaleeto inaan wixii aan gabadhaa siiyey baahidu hayso oo kale ayadana u geey. taasi marka waxay ii saamaxday inay timaado kalsooni ah in aan innaha la ekaatee aanan marnaba aanan midna ku jiifanayn oon cadaalad u ah. waana aasaaska usro islaami ah oo cadaalad ah oo wanaagsan. waa aasaaska is-aaminid ama reerku inuu saamino waa aasaaska ah in laga gudbo ama islaamku sidoo noogu talagalay daawo uu noqdo waxa la yiraahdo masayrka faraha badan ee gabdhaha Soomaalida ku jira. masayrka gabdhaha Soomaalida ama caalamka oo dhan ku jira waxa weeyaan waxa basis oo ama sal u ah in aan lagu dhaqmin qaacidadii islaamka. waa tahay كسفيان هانادك إلهي يعني حاسس كاغ عرور بكاسي نعم يكو إلهي كاسي سيندونا ما أودا إن وحبر الشضوضة إيا نلشوضة أساسي من أولا كفالة قادم الحمد لله waxaan moodaa su'aashaasi runtii waa ama mas'uuliyadaas waa mas'uuliyad Allah subhanahu wa ta'ala u leeyahay mas'uuliyadaas anigu ma lihi Allah
الله سبحانه وتعالى أيها بلن قاضي قفل بابا إرسقيس أنا كلي وحلي أمري أما لي فري إن أن صعده ونشقته ويل كيجا يجبر ديدو وحي أولسي منيهن أما وحبر شفي عن أما نلو نكسن وحي أولسي منيهن نينكا حلك عنق نينكا حلك حاسله أما لبو أما سدح أي ولا شيء أي أولسي منيهن معناها تاس waxaan ka wadaa ninka halka xasan Soomaalidu waxay aaminsan yihiin ama dadka Islaamka ah dadkeena Soomaalida waxa ka dhaadhaxsan ama gabadhiiba ka dhaadhaxsan waxyaabaha keenana waxa weyn runtii in ragina ay ka baqaan guurkii gabdhihiina ay diidaan in la guursado waxay tahay in ay ka baqaan waxa la yiraahdo khashyat al-imlaaq ama inay ka baqaan inay baahoodaan ama irsiqi inuu ku yaraado ama cunug waxbarashadiisii in aan macnaha awood loo lahayn arintaas الله سبحانه وتعالى أيها كفالة قاضي وحنا ربا إن لو ذاقو رجع سومالية يقبلها سومالية با هدي ننك أفر تحاسله إلهي وكبرك يا أولاد فربضا ويل كيس يقبل يسوع وحي وناق وحبرشوا إيو إنه هرمران وحي ولس منيهن متك حلك حاسله هل عنق إلهي وكسي كليه معناها تاسو عن كوضها نينكا سوماليdu waxay aaminsantahay ninka halka xaasle han culug ilaahay siiyay ninkaasi maadaama hal hooyo iyo hal aabo wada shaqeynaya waxay wadu leeyihiin cunugaas wax barashadiisa inay bixiyaan waxay wadu leeyihiin cunugaas inay horumariyaan waxay wadu leeyihiin cunugaas dhar fiican inuu qaato saasa ka dhaadhaxsan Soomaalida waxaysan ogeyn oo ay iloobeen sunnadii Allah subhanahu wa ta'ala oo ahayd ayaga iyo idinkaba annaga ayaa idin qoodinayna sidoo Allah yiri subhanahu wa ta'ala ilmahayga marka su'aasha marka aan ka jawaabo waxbarashadooda horumarkooda hadda inta joogta kuwa imaad doona alxamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ayaa isiiyay awoodii aan ku dabari lahaa waxaana mahadda iska leh Allah subhanahu wa ta'ala waxaan rabaa marka shacabka Soomaaliyeed iyo dadkeena Soomaaliyeed in ay ka hormariyaan siyaasadda islaamka inay ka hormariyaan dareenka shakhsiyadeed ee shaydaanku ku hogaamiyo way jiraan dad runtii Soomaaliya gabdho Soomaaliyeed ama wiilal Soomaaliyeed oo cabsi ka qaba ama gabdho ragga ka cabsada jira iyo rag gabdhaha ka cabsada waxa la dhahaa androphobia iyo genophobia waa wax jiro caadiyaho psychologically iyo biologically la barto oo jira caalamka ka jira way ninkii saas waa nin jiran oo dumarka cabsi ka qabaahay waa qof jiran qofkaas wuxuu u baahan yahay treatment iyo in dhakhtar la geeyo oo la baaro oo la daaweeyo u baahan yahay ninka caadiga laakiin iyo gabadha caadiga ee mashquulka ku ah irsiqi ee mashquulka ku ah wixii Allah subhanahu wa ta'ala u ballan qaaday inuu bixiyo waxaan jeclahay in ay ka hormariyaan siyaasadda islaamka oo ah inay isguursadaan oo bataan si Allah si rasuulka sallallahu alayhi wasallam maalinta qiyaamaha uu ugu faano ummadiisa iyo in la xaliyo dhibaatooyinka ka jira wadankeena Soomaaliya oo ah populationka waa lagu tartama wadanka ka dad badan oo intaas oo milyan leh ciidan ahaan waa ka adag yahay dhaqaale ahaan waa ka badan yahay wadanka macnaha technology ahaan iyo horumar waa ka badan waa ka cabsanaysa marka anagoo islaam oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu na amray ama uu na faray in aan isguursano oo guurka badino si aan uga badano wadamada macnaha dunida kale saan uga badano waxa qalad ah in qofka bini'aadamka oo Soomaaliga oo islaamka ah uu ku mashquulo maantay xageen waxaan cuna ka helay hatta dadka gaalada ah especially Catholic ah iyo gaalada kaleba waxay aaminsan yihiin irsiqoodin ilaa keenay diintooda qoraysa bal ayagii waxa ka dhaadhacday in aysan maadaama cunugii uusan awood u lahayn in uu wado because iimaan ma laha ama uu koriyo ayaa wax ka dhaadhacday iska dhaafan arintaas waa mid kale oo rabo inaan la wadaag bulshada waxa kamid ah waxa jira hay-ado maantay ka shaqeeya Afrika oo gaala ah oo shaqadoodu ay tahay in ay yareeyaan dhalmada dadka islaamka waxay isticmaalaan ayagoo isticmaalaya wax la yiraahdo talaalka ay waxay sameeyaan in ay talaalka ku daraan daawo loogu talagalay in ay disho ugxanta gabadha ama ovarian tubes ama eggs-ka oo gabadha ay leedahay si aysan u qaadin muddo ama 5 sano haato ama 3 sano haato ama 4 sano haato ama gabadhii uu ku dhaco complications macnaha complications waxa la yiraahdaa markastay uur qaado in dib u yimaado si uurkii iyo guurkiiba looga cabsado waxa bilaabatay in gabdhihii xataa qaarkood ay noqdeen markasta in lagu qalo
waxaasoo dhanna waa wax foreign powers ay ka shaqeeyeen marka waxaa la rabaa qofka Soomaaliga haddaad og tahay in weerarkaas lagu hayo maantay waxaa waajib ah waxaa diiniyan ah waxaa ina saaran in qof walba oo Soomaaliya gabadhuna ay fududayso guurka oo ninka walaalkeeda ay u fududayso